السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، talo aan siinayo dhammaan dhalinyarada muslimiinta ah, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ee caalamka ka joogaan. Waxaan leeyahay, waxaad ku daysataa oo aad khudwa ka dhigataa Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaatu wassalaam. waxaa xumaan u soo dhibandhigtay ama zina haweeney guri boqortooyo ku nool, qurux badan, ninkeeduna yahay wasiir ka mid ah umaradii Masar. wax walba oo loogu fududeey karo xumaantaasna way sameysay. albaabadii ayay xirtay, way isqurxisay, wax walba way u ballan qaatay. hase yeeshee Nabi Yuusuf calayhi salaatu wassalaam uu ka diiday, wuxuuna ku yidhi macaada allah innahu rabbii axsanu mathwaaya. nabigana calayhi salaatu wassalaam wuxuu noo sheegay, xadiis noogu sheegay, maalinta qiyaamo marka qoraxda la soo dhaweeyo, qof walbana uu dhiban yahay, uu raadinayo meel uu ku harsado, inay jiraan kaliya 7 kooxood ama 7 qolo oo Ilaahay harkiisa harsanayo. 7daas qolo waxaa ka mid ah qof walba oo haweeney qurux badan ama gabar qurux badan, wax lagu nacana aysan qabin, oo cideeda sharaf leeyihiin, oo mansab iyo jamaal iyo wax walba isku darsatay. haddii u soo bandhigto xaaraan iyo zino, ay nafteeda isku bandhigto, qofkii ka diida oo ka dhowrsada oo yiraahda waxaan ka cabsanayaa Allah, inuu ka mid noqonayo 7daas harsanayso harka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. maanta aad iyo aad ayay arintaas u yartahay. bal waxaan arkaynaa dhalinyaradeenni waxay ku fidnooween adduunyadii, waxay ku fidnooween haweenkii. haddaba walaal, sidee isaga ilaalin kartaa zinada? midda ugu horeyso aan kugula talinayo waxay tahay, kaligaa hala noqonin haweeney ama gabar kaligaa meel ha isugu imaanina, ama guri ha noqoto, ama qol ha noqdo, ama meel kale ha noqoto. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay, maa khala rajulun biimra'ah إلا وكان الشيطان ثالثهما. nin gabar ama haweeney kali lama noqdo ilaa shaydaan ayaa saddexeenaya. shaydaanka ayaa meeshaas ka faa'iideysanaya. midda labaad aan kugula talinayo waxay tahay, la saaxiib dadka mu'miniinta ah ee muxsiniinta ah ee wanaagsan, ha la saaxiibin dadka xunxun. sidoo kale waxaan kugula talinayaa inaad ka fogaato oo iska ilaaliso inaad daawato aflaanta xunxun ee fuxshiga iyo faajirnimada iyo dhaqan xumada xambaarsan. sidoo kale iska ilaali inaad dhageysato heesaha. heesahu maxay dhib oo leeyihiin? heesaha waa mid ka furfura albaabadan u fura xumaanta iyo zinada. sidoo kale guurso oo ku degdeg guurka. taladan ku siinayo ugu weyn waxay tahay, walaalka muslimka ahow, walaasha muslimada ahay, guurso intaan dhalinyarada tahay. haddii aad awoodo aysan jirin caqabad ka hortaagan, guurso. sababtoo ah guurka markaad guursato 50% diintaada way asturmatay, 50 kalena Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga cabso. haddii aadan awoodin guur, waxaan kugula talinayaa siduu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam u sheegay dhalinyarada, inaad soonto. fa in lam yastadic fa alayhi bis-sawm. ha soomo fa inna lahu wajaa. soonka isaga wuxuu yahay kaashaan ka ilaalinaya xumaanta iyo zinada. waxaan u dhawaanaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala taqwadiisa iyo alla ka cabsigiisa. qofka zaanika ah ama zinaysta ama fuxshiga aan iska ilaalin, maxaa caqabo ah iyo maxaa dhibaato ah oo adduunyada dusheeda ku dhaca aakhiro intaan la gaarin. qofkaas adduunyada dusheeda diintiisa way sii yaraanaysaa, iimaankiisana wuu naaqusayaa. midda labaad oo sinada ka dhalataa waxay tahay, xishoodka ayaa qofka ka taga. qofka zaanika ah ee zinada caadaystay ee aan ka toobad keenin ee wali ku jira, xishoodka uu ka tagaa, wuxuuna noqdaa qof aan waxba u aabayeelayn. qofka zaanika ah waxaa kaloo asiiba waxa la yiraahdo faqriga. qofka zaaniga faqriga wuxuu u noqdaa daris, mana ka zuulo faqri iyo ciriiri noloshiisa inay ku jirto, iyo stress iyo dhibaato kama baxo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax walba oo helana uma barakeeyo, bal Ilaahay wuxuu ku salidaa faqri. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay, ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قفكي كتغا وذكريغيغا يا حسكيغا كسي جيستا nolol adag ayaan ku nooleynaa maalinta qiyaamo waxaan soo shirnaa asagoo indhala markuu weydiiyo dhow ilaahu adduunka indha ayaan ku lahay maxaa indhaha lii tiray waxaan leeyahay aayadaheennii iyo xaqii waa ka jeesatay waa iska indha tirtay sidaasoo kale ayaa maanta anagana ku ilaawnay oo indhaha kuu tirnay walaalayaal midaas waa talooyin waa talo aan u soo jeedinayo dhammaan dhalinyarada muslimiinta ah weliba dhalinyarada Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.